Okay saaxiibayaal soo dhawaada maanta waxaan idin tusayaa sida remote desktop connection loo sameeyo ama computerkan macluumaadka ku jira oo dhan sidii looga soo access gareyn lahaa computerka kale. Marka labada computer inay isag yaalaan qasab ma aha, way kala fogaan karaan, laakiin waxa qasab ah inay isku network ku xiran yihiin. Marka computerka aad rabto in macluumaadkiisa la access gareeyo oo meel fog waliba laga soo access gareeyo ayaa waxaad sameynaysaa settingskiisa tagaysaa. Settings markaad gasho settings ku badanaa marka ugu horeysa saa loo galo home ku joogaa saas oo kale home-ka adigu laakiin waxaad tagaysaa system ayaa tagaysaa. System markaad tagto halkan waxaad ka raadinaysaa saaxiibayaal remote desktop, sababtoo ah computerkan waxaan rabnaa in remotely loo soo access gareeyo ama meel fog laga soo access gareeyo macluumaadkiisa. Wax kasta oo ku jira computerka kale ayaa laga soo access gareyn karaa. Kolka halkan waxaad sameynaysaa on remote desktopka, bartaas waa inuu on ku ahaato, enable buu ku leeyahay, confirm baad odhanaysaa. bartaa markaad confirm tiraahdo macluumaad yar buu halkan kaa tusayaa. PC-ga magaciisa oo abyad ku qoran tahay ayuu ku sii ogeysiinayaa maadaama oo hadhow aad u baahan doonto. PC-ga magaciisa iyo passwordkiisa waa qasab, computerka kale ayaana weydiin doona. Halkan sidoo kale wuxuu rabaa in cidda aad rabto inuu access gareeyo aad magaciisa ku darto, laakiin halkaa waan iska daynaynaa. Waxaan sameynaynaa bartan sidoo kale wuxuu kaa tusayaa boortiga uu isticmaalo remote desktopku oo ah 3389. dabeetana waxa kale oo loo baahan yahay in computerka aad rabto in la access gareeyo waxaa la sameeyaa firewallkiisa. sidoo kale allow an app through firewall ayaa Windows firewall markaad ku qorto halkaas ka dooranaysaa. halka markaad ka doorato bartan waxa muhiim ah remote desktop ayaad ka raadinaysaa. Change baad horta odhanaysaa si aad uga bedesho haddii uu on yahay aad off, hadduu off yahay aad on usoo tiraahdo oo kale. bartani alphabetical order weeyaan. arta markaad joogto remote desktop bartaa ka raadi, dabeetana labada meelood waa inay ku saxan yihiin. maadaama anigu remote desktop aan hore u sameeyey labadaas meelood way saxan yihiin saad arkaysaan. sidoo kale waxaa muhiim ah remote desktop web socketkaas isaga laftirkiisu waa inuu ku saxan yahay, private iyo publickiisu labada meeloodba waa inay on ku yihiin. Okay baad odhanaysaa dabeetana. marka computerkan waxaa kale oo qasaba inaad IP addresskiisa ogaato, weliba IPv4ka ama IP version 4ka. waxaad ku qoraysaa barta cmd searchiga, dabeetana waxaad ku qoraysaa IP config bartan si aad u ogaato IP addresska computerkan oo loo baahan yahay oo computerka kale aynu wax ka soo access gareynayno uu ina weydiin doono. marka halkan IPv4ka ama IP version 4ka ayaan highlight gareynayaa, waa ka loo baahan yahay weeyaan. marka intaas aad samayso computerkan aad rabto in lasoo access gareeyo way kaaga dhamaatay. waxa aad sameynaysaa computerka kale ayaa tegaysaa. computerkan kale markaad tagto ilaan waxaad rabtaa macluumaad kasta oo computerka kale ku jira inaad halkan ka access gareyso waxaad sameynaysaa searchigiisa tegaysaa. waxaad ku qoraysaa remote desktop connection ayaad ku qoraysaa, remote desktop connection. markaad ku dhufato halkan waxa weeyaan waxa lagu weydiiyay IP addresska, weliba IP address version 4ka oo halkaa aan highlight gareeyay 172.20.10.6 weeyaan. halkan aan gelinayaa marka IP addresska. markaan halkan geliyo waan gelinayaa IP addresska. markaan bartaa geliyo already hore waan sii geliyay. waxaad sameynaysaa bartan waa muhiim saaxiibayaal, adiga wuxuu ku weydiinayaa usernameka iyo passwordka, laakiin aniga maadaama aan horey u setup gareeyay wuxuu kaliya ii weydiiyay IP addresska. marka wuxuu weydiiyay baan jeedaa passwordka. marka passwordka ayaan gelinayaa. passwordkuna wax kale ma aha, username iyo passwordka wax kale ma aha, waa magacii kolkii aan idin tusayay iyo passwordka computerka kale ku xiran. marka computerkan passwordkiisa weeyaan. marka meel kale ha u doonin magaca computerka oo ahaa abyad kaas ahaa iyo passwordka unbaad gelinaysaa. passwordkuna waa ka Windowsku ku weydiiyo markaad computerka soo galayso. marka halkan daaqadan waxaan odhanayaa saaxiibayaal okay ayaan odhanayaa, yes baan odhanayaa, dabeetana automatically waxa ii soo baxaya computerkan kale. labada computer waa kaas computerkii halkii aan joogay, isla bartii aan joogay oo ahaa inaan cmd-da ku dhex jiray uu bartan iga soo saaray. marka hadda waxaan sameynayaa waa kaas aad arkaysaan abyad. marka waxa halkan ka muuqda ma aha computerkii mataqaanaa aan caadiga ahayn isticmaalay waxa weeyaan computerkii aan access gareynayay desktopkiisii weeyaan. macluumaadka ku jira oo dhan ayaan bartan ka access gareyn karaa, laakiin waxa muhiim ah in la ogaado computerka remotely iyo normal looma isticmaali karo oo waa in labada midkooduna aad ku isticmaalayso. tusaale ahaan kan iyaga hadda wuu xidhan yahay, haddaan login idhaahdo oon galo waxay ka dhigan tahay kan wuu ka baxayaa. marka halkan aan kaga jiraa, maadaama halkan kaga jiro waxalla wixii aan u baahnaa inaan isticmaalo ayaan bartan ku isticmaalaya. marka aan waxa ka fushado tusaale ahaan waa kan YouTube-kan kaga jiray barta, wixii aan kaga jiray oo dhan hadda halkan aan ka arkaya sidii inaan computerkan isticmaalayo oo kale
ayaan ugu jiraa. Computerkaasina waa ka automatically uu xidhan yahay. Markaan ka fushado IP addresska saad arkaysaan halkaas computerka aan isticmaalayo IP addresskiisa ayuu barta iga tusay. Markaan ka fushado wax walba cancel ayaan iska taabanaya ama waan jaraya. Cancel ayaan taaban karaa oo waxaan sameyn karaa waan ka bixi karaa. Laakiin hadda si aan idin tuso computerkan hadda maadaama uu loo gareysan yahay, sababta uu loo gareysan yahay waxa weeyaan inaan xagga kaga jiro oo remotely aan u isticmaalayo. Laakiin haddaan bartan geliyo passwordka oo aan caadi u galis iraahdo, maadaama meel in laga isticmaalo uu ogol yahay, wuxuu sameynaya kan automatically ayuu isaga saaraya. Wuxuu leeyahay computerka waa la isticmaalaya buu leeyahay. Marka ama remotely baad u isticmaali kartaa ama caadi. Marka aan okay iraahdo halkan ayaan kasii wadan karaa hawsheeda. Marka sidaa weeyaan saaxiibayaal, sida remote desktop loo sameeyo oo computer looga access gareeyo computer kale. Waxa la wixii macluumaad ku jiray wax walba computerka kale ayaan ka isticmaalay. Waa cashir aad iyo aad muhiim u ah. waliba qaybta networkinga remote desktop ayaa la yiraahdaa, remote desktop RDP ayaa la yiraahdaa. Waxa jira software la isticmaali karo sida muxuu ahaa AnyDesk software la dhihi jiray oo kale. Laakiin kani waa local oo networkinga ayuu ku jiraa. Waana qodob aad iyo aad muhiim uga ah marka aad baranayso networkinga. Wuxuuna isticmaalaa portiga 3389. marka saaxiibayaal arrintaas ayaan rabay inaan la wadaago. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum.